iyadoo bilihii u dambeeyay deegaanada Soomaaliland ay ka jirtay xanuunka xumadda isla markaana ay la irdarnaayeen bulshada reer Soomaaliland ayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta beeraha waxay magaalada Burco ka daafurtay mashruuc lagula dagaalamayo kaneecada iyadoo laga buufinayo goobaha bulshadu iskugu timaado iyo sidoo kale meelaha biyuhu fadhiistaan munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Togdheer mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda horumarinta beeraha iyagoona soo bandhigay gaadiidkii lagu buufin lahaa kaneecada ugu horeyntii waxaa ka waramay iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Axmed Abawalid iyagaasima waaxidyo ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo beeraha iyagoona bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan waxa la daafurayaa mashruucii buufinta kaneecada oo ah wasaaradda horumarinta beeraha oo iyadu keentay gaadiidkii mashiinadii iyo shaqaalihii u tababarnaa waxa kale oo yara maraya laba agaasime oo iyaguna xarunta ah maanta waxa weeye kaneecada dadka laynaysa ee dhaqtarada iyo meelo badan kala yaala ee dalka ka jirta Soomaaliland ayaa gurmadkeeda loo yimi anna qoladii Hargeysa ka timid socotay baanu hayn ana sidoo gobolka ah waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud madaxda wasaaradda oo dhan waa uga mahadnaqaynaa gurmadka ay sameeyeen inay joogaan team ka shaqeynaya buufinta kaneecada teamkaasoo markaa ama kooxdaas oo iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda beeraha oo loogu talagalay inay gobolka meelaha la filayo inay kaneecadu ka dhalan karto ama ay dhigan karto ugaxanta in la buufiyo xalina qorshihii shaqadii bilaabantay maantana oo baahannahay caawana la doonayo shaqooyinka ugu cuslaa inay la galo teamka laba qaybood baan u qaybinaynaa qayb qorshihii waan sameynay qayb waxaan ka dhigaynaa qayb buufisa wasaaradaha iyo iskuulada iyo xafiisyada gobolka iyo muxuu ahaa hundheelada qaybna waxaan ka dhigaynaa qayb buufisa meelaha loogu talagalay ah kaymaha ama biyo fadhiisinada ama waxyaabahaas oo dhan yani aynu u filayno inay ama halista u ah inay kaneecadu dhigato ugaxanta si markaana mid cusub u dilaacin markaas hawluhu qorshaheedu waa sidaas waxaana samayn doonaa markaas sidii teamkaasi muddada uu joogo aan u dabooli lahayn gobolka waxaan aad u mahad celinayaa labada wasiir shaqadan qorshaheeda iyo hawsheeda ka soo qayb galay wasiirka caafimaadka iyo wasiirka beeraha oo keenay istaraatiijiyad ama qaab cusub oo looga hortagi karo markaas hawshan sidii loo yareyn lahaa adigana waa kaaga mahad celinaynaa fududeynta iyo hawlaha sidii ilaa muddadii aad hawshu bilaamatay teamkana shaqo fiican bay hayaan waa team tababaran labada qoloba qaybna waxay diyaarinaysaa dawooyinkii iyo qorshihii qaybina waa technicalkii buufintii iyo sameyntii markaa sidii meel walba ay u buufin lahaayeen marka labadaas tii marka la isku daro waxay muujinaysaa waxaa markaa la gaarayaa ujeedkii loo lahaa jecelahay inaan u mahad celiyo labada wasaaradood labadooda isu duwe gudoomiyaha gobolka oo si fiican noogu soo dhaweeyay gobolka markaan soo galnay shaqadii koobaadna aanu xalay la bilownay shaqadanu runtii waxay socotay wiigii labaad baa noo dhamaanaya waxaanu ka soo bilownay gobolada galbeedka Boorame Hargeysa Gabiley iyo deegaanada kale hoos yimaada waxaanu hadda soo gaadhnay oo soo gaadhsiinay gaadiidkii iyo dawooyinkii iyo shaqaalihii tababarnaa gobolka Togdheer fariinta hadda waan faraynaa markan ka sameynayna waxa weeye marka ugu horeysa qof kasta ama bulshada aanu jeedinayna waxa weeyaan marka imika aynu aragno kaneecadu halkay ka dhalanaysaa weeye
iminka buufintan waa qayb ka mid ah hakinta lagu samaynayo in ay badato kaneecadu laakiin waa maxay waxa laga inaan buufino waxa weyn marka la buufiyo taayirada ayaa laga yaabaa meel yaala biyo ay ku fadhiisteen biyo ay ku jiraan inay faafiso marka waxa laga yaabaa biyihii meel joogay ee matalan wasaqowga ama bulaacad yar oo kale inay ku sii laalan tahay oo ay ku korto oo ay badato kaneecadana waxa weeyaan sidii tii hore kale biyaha macaan joogi jirtay maaha biyaha wasaqda ka dhalanaysa warasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa wasaaradahani ku amaanay dadaalka ay ugu jiraan sidii loo cirib tiri lahaa kaneecada waanu mahad celinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasaaradda horumarinta beeraha oo runtii oo iskaashanaya ayaa qayladaan runtii ka bacdi ka soo jawaabay inay noo soo diraan gaadiid iyo dadkii u tababarnaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa labada wasiir waxaan sidoo kale u mahad celinayaa shaqaale weynaha runtii labada wasaaradood heer gobol iyo heer qaranba runtii si hagar la'aana oo xilkasnimo ah hawsha u wada xalayna way bilaabatay sidaa darteed bulshada gobolka Togdheer xaruntiisa Burco waxaan u sheegaynaa ugu bishaaraynaynaa waa la buufinayaa kaneecadii runtii sababtay xanuunkan ama xumadan faraha badan ee dadkeeni inta badan ay u jiifto in badan runtii iyaguna ay maxay tahay ay sabab u noqotay inay u dhintaan marka insha Allah waxaan rajaynayaa in aad la shaqeysaan oo aad ka gacan siisaan waxa la waxay u baahdaan Axmed Shaafi wararka telefishinka Sahan Burco.